Kani waa dalka Thailand, waa mid ka mid ah wadamada ugu horumarsan guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan qaaradda Aasiya. Waa mid ka mid ah dalalkii ka badbaaday gacantii gumeystayaasha reer galbeedka. Haddaba daawadayaal, waxaynu muuqaalkeen kusoo koobi doonaa taariikhda faca weyn iyo xaqiiqooyin ku saabsan dalka Thailand. Balse intaan maqaalin, fadlan haddaan nagu cusub tahay kanaalka subscribe saaro si muuqaalada kale xiisaha leh ku soo gaaraan. Dalka Thailand iyo dadweynaha Thai oo hore loo yaqaanay Siam, oo ay ka rasmi ah boqortooyada Thailand. waa wadan dhaca koonfur bari Asia, waxay ku taalaa bartamaha jasiiradda Indo-Chinese. waa wadan masaaxada dhulkiisa lagu qiyaaso 513,120 km². waa wadan ay ku nool yihiin ku dhawaad 70 milyan oo qof. dalka Thailand waa dal 4 jiha ku leh xuduud. dhanka jihada waqooyi waxaa ka xiga wadanka Myanmar, halka dhanka jihada bari ay ka xigaan wadamada Cambodia, Laos. dhanka koonfur waxaa dhaca gacanka Thailand iyo Malaysia, halka dhanka galbeed uu dhaco Banda Andaman. caasimadda wadanku waa Bangkok, waana magaalada ugu faca weyn guud ahaan wadanka Thailand. Thailand waa dowlad boqortooyo oo ku dhisan habka baarlamaanka dastuuriga oo si dimuqraadi ah loo soo doorto. dhaqaalaha Thailand ayaa si weyn ugu tiirsan dhoofinta alaabaha kala duwan, iyadoo sanadkii la dhoofiyo alaabo iyo adeegyo qiimahoodu dhan yahay 105 bilyan oo dollar sanad walba. dhoofinta ugu weyn waxaa ka mid ah alaabaha bariiska, kombiyuutarada, baabuurta iyo qalabka korontada. wadanka Thailand dhanka caafimaadka ayaa horumar ballaaran lagu sameeyay. waxay ku jirtaa kaalinta dhexaad ee adduunka iyo kaalinta koowaad ee qaaradda Asia. qormo la sameeyay dabayaaqadii 2019. diinta ugu ballaaran ee haysan dadka reer Thai ayaa diinta Buddhism oo ka wadka 49%, halka diinta Islaamkuna ay ka tahay 5%. Hinduuga iyo diimaha kale oo ayaguna 1%. dhaqanka iyo caadooyinka dadka reer Thai ayay aad isku saameeyaan dadweynaha Hindiya, Shiinaha, Cambodia iyo dadka kale ee koonfur bari Asia ku nool. dalxiiska ayaa ka mid ah waxyaabaha uu dhaqaalaha ugu badan ka soo gala dowladda.